Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalka Pro ICT IT. waa tii casharadii aan wadnay halkaas kasii wadi doonaa. Maanta casharka aan qaadan doono wuxuu noqonayaa Hyper-V-ga qaabka loogu sameeyo domainka ama domain control. In aad sameyso qaabka aad u sameyn lahayd ayaan geli doonaa, si toos ayaan u geli doonaa practicada ila soco. Okay, waxaan joognaa Hyper Manager-kaas aad ujeedaan. dabcan meesha aan ku sameyn doono maaragtay domainka wuxuu noqonayaa server 01 ayaan ku sameyn doonaa. double click ayaan ku leenahay, kadibna uu noo soo kacay. kadib waxaan sameyn doonaa manage ayaan dhehnaa. qaabka aad serverka ugu sameyn jirta ayaa ugu sameynaysaa. marka laakiin in aad server maaragtay halkan aad Hyper-V-ga aad kusoo darsato muhiim ah. kadibna maaragtay domainka waa isku mid qaabka loogu sameeyo serverka. dadkii hore casharkii la socday. marka next ayaan leeyahay, kadibna next ayaan leeyahay. IP address-ka noo soo qabsado waa sax. next ayaan leenahay. marka meeshan ayaa ka dooran doontaa Active Directory Domain Services ayaa ka dooran doontaa. waa domainka meeshii aan ka sameyn lahayn. click ayaan ku leenahay. afwan waxaan doortay laba kan ka hooseeya. waxaa la rabaa kan inaad doorato meesha ku qoran tahay Active Domain Services ayaa laga rabaa inaad ku dhufatid. okay, dib ayaan ugu laabanaya si aad ula socotaan. waa halkan, waa Active Directory Domain Service ayaa click ku leedahay. kadibna waxaad click ku leedahay Add Features. kadibna calaamadii saxda ayaa noo soo qorantay, wuu noo qabsaday. marka next ayaan leenahay, kadibna next ayaa leedahay. meeshaas wax ma ka bedeleysid. next ayaa leedahay, kadibna install. marka dib si toos ayuu noogu shubaa. marka install aan leenahay. kanna markuu tago ilaa 100, that means waa inoo diyaar domainkeena maaragtay in service aan ku sameyn lahayn. domainka nooma diyaar ahan, laakiin waxaa noo diyaar ah service aan ku sameyn lahayn. qaabkii aan ku sameyn wixii aan ku sameyn lahayn aan diyaarsanaynaa. waa ujeedaan waxaa maaragtay Active Directory Domain Service ayaa lagu shubayaa. Group Policy Management ayaa lagu shubayaa. waxaa lagu shubayaa maaragtay Remote Server Administrator Toolska ayaa lagu shubi doonaa. Role Administrator Toolki ayaa lagu shubi doonaa. Add toolskaas ayaa lagu shubi doonaa. waxyaalaha intaana noogu shubayaa. kadibna ready markuu noo dhaho ayaan stepska domainka aan ku sameyn lahayn ayaan geli doonaa. okay, ayuu noogu shubay. waa successfully, waa ujeedaan. kadibna close ayaa leedahay. meeshaana calaamada jaalaha ku imaan doonto. calaamada jaalada soo ma jeedin, waa inuu diyaar. marka meeshaas remote-ka ayaad ku dhufan doontaa. remote server domain control ayaa ku dhufan doontaa. kadibna wuxuu noo keenayaa ma rabtaa. marka stepadan waxa waaye mid hore maad rabtaa inaad ku darsato, ama mid horey oo kugu jiro oo forest ahaan oo maaragtay oo gadaalka maaragtay ma rabtaa oo maaragtay ama new. marka new aniga hadda new aan rabnaa inaan sameyno. new forest ayaan sameyn domain ayaan sameynaynaa. domain cusub. marka waxaan u bixinaynaa abdi .local. cabdifataax.local camal aan sameynaynaa. domain ah. kadibna next ayaan leenahay. kan noo yaray. okay, passwordka aad u sameysan lahayd. okay, next ayaan leeyahay. kadibna next. wax kala kor oo ujeedaan wax kale maahan. DNS-ka ayuu u baahan yahay, laakiin dhib malahan. dib ayaan ka sameyn doonaa. next ayaa leedahay. waa ka domainkii noo sameysmay oo soo qabsada cabdifataax. okay, next ayaa leenahay. hoos oo bixina. waxyar kan inaan iska yareyno
fiican saas aan yareynayna si aad u aragtiin dhammaan. Okay, kadibna next ayaan dhihi doonaa, way la socotaan aan filaya. Next kor aan baxno wixii horan waa meesha uu ku shubi lahaa hadiskiga. Hal hadiskiga hadda aan isticmaalayaa. Marka hadiskiga haddii aad tusaale ahaan dhowr shirkadda ay leedahay dhowr hadiskiga meeshaas ka dooranaysa lagu shubi lahaa. Marka ani meeshaas ayuu ku jiraa, waa next c-ga, kadibna next saad u jeedaan uu socdaa checking uu raadinayaa waxa dhan hadda waa okay. Kadibna halkaas ayaan dhihi doonaa next. Install ayaan dhihi doonaa, cafwan install ayaa dhihi doontaa. Okay, kadibna shaqadii ayuu wadaa oo maaragtay installationka ayuu sameynayaa. way la socotaan filaya wuu socdaa. Marka waxaa laga yaabaa inuu waqti yar qaato, kadibna maaragtay waxaan sameyn doonaa wuu inoo sameynayaa. Okay, shaqadii ayaa socoto, waqti badan oo qaadanaya wax yariis inuu domainkii uu dhammaan u sameeyo, serviceka dhan uu usoo diyaariyo. Marka waqti uu qaadanayo wax yar inaan sugno waa lagu qasban yahay, masha Allah. Kadibna maaragtay domainkiina halkaas inuu diyaar ku yahay waxaan ka arki doonaa. waa ugu dambeyntii waa inuu maaragtay restart ayuu sameyn doonaa. domainkii waa inoo sameysmay. kadibna waxaan ka arki doonaa halkan ay ku qoran tahay local servers. hadda domain nooma sameyso, soo ma jeedin, domain nooma sameysno, laakiin markuu dhameeyo restartigaas domainkii waa inuu sameysan doonaa. maaragtay halkaas ayaa domainkeena magaca kusoo qoran doono oo ay ku qoran tahay oo groupka ama domainka maaragtay meeshaas ayuu kusoo qormaya ila soco. Marka halkan hadda restart markuu sameeyo kadib ayuu domainkeena halkaas kusoo qori doonaa cabdifataax.local ayuu soo qori doonaa, meeshaan uu kusoo qori doonaa. way la socotaan filaya. marka wax yaraan sugno, kan restart isku sameynaya. maxaa yeelay wuxuu sameynayaa all settings oo cusub oo maaragtay computerka ayuu hadda maaragtay siin doonaa. hubarbeega maaragtay guud ahaan settings ama waxa uu wata dhan ayuu featureskiisa dhan ayuu siin doonaa maaragtay. marka waa inuu diyaariyaa, marka waa inaan sugnaa. meeshaan domainka ayuu noo keeni doonaa. marka restart ayuu isku sameynayaa. startiga waa inaan sugnaa. weli waa wadaa. markuu dhameeyana domainkeena waa inoo diyaar. cabdifataax.local ayaan sameynay. waxay la mid tahay macnaha shirkadda magaceeda domainka loo sameeyey ayaa shirkadaha magaca shirkadda ayuu noqonaya macnaha domain serviceka oo la sameynayo. marka taas waa inay la fahantaan. dabcan dadka hore casharka la socday way la socon. dadka cusubna domainka waxa loogu talagalo waa in shirkaddii ama jaamacaddii ama maaragtay businesska noocaas ah qaybtiisa ama maaragtay hataa maaragtay waxaan ku dhahaa dowladaha. adiga domain waxa waaye wax kasta oo maaragtay wixii serviceka la sameynayo dhan ayaa domainkii magaciisa uu noqonaya. tusaalahaan hormuud.local ayaa wax kasta oo hormuud ku saabsan meeshaas laga wadaya. telesom ayaa taqaanaan. maxaan ku dhahaa marka domainada magaca aad sameysato waa shirkadda marka oo aad markaas domainka laga maamulayo. marka waa inaad saas u fahantaan hadduu yiraahdo.
dabcan uu waqti badan uu qaadanaya settingiisa inuu isku shubo, laakiin waa inaa sugnaa, waa ku khasban tahay inaad sugtid. dabcan installation markuu aad u dheeraado aniga oo keelkayaan gashtaa oo ay la socotaan filaya. ugu dambeyntii waa serverkan waa inoo diyaar, saad ujeedaan maaragta domainkii waa inoo diyaar. mar haddaan kicino domainka waa inoo diyaar, marka control dalkaas meeshaas ay ka kicinaysaa markasto, ama keyboardka ama halkan. dabcan halkan ayaa fudud toos inaad uga tagtid. domainkeena saad ujeedaan waa cabdifataax dot maaragtay local oo administratorka ayaad ujeedaan. mar hore bis administrator bis uu ahaa oo maaragtay wax kale ma lahayn. hadda laakiin domainkaaga inuu diyaar yahay meeshaas ayaad ka ogaanaysaa. domainka markastaba halkaas ayay ka ogaanaysaa, shirkadda magaceeda halkaas ayay ka ogaanaysaa. saas haddaan u dhigana dabcan waxaan passwordka aan soo sameynay domainka ayaan gelinaynaa. kadibna waxaan arki doonaa domainka inuu noo sameysan yahay. inta waa ka aragnay, laakiin haddana waxaan ka arki doonaa server maaragta Hyper-V managerka ama Hyper-V managerka qeybtiisa local server halkaas ayaa ka arki doonaa. meeshaas ayaa ku dhufanaysaa. shaqo wada hadda waxay sug dabcan waa kana marka cabdifataax dot local domainkeena domain name. okay, domainka magaciisa waa cabdifataax ama shirkadda waxay noqonaysaa domain nameka cabdifataax dot local. waa tii aan sameynay domain. hadday wax nooma qorneyn, qofkii ila socday wax kuma qorneyn halkan. hadda maaragtay wuxuu noogu soo qoray domainkii aan sameynay. okay, maanta casharka aan qaadanaynay ujeedada maaragtay domainka qaabka loo sameeyo ayuu ahaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dabcan intaan ka bixin share gareynta subscribe-ka waa dhinacina. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.